السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي ذقالقة ميل كستبا أدونك دعالة سيقا داوانا سوحان دين الله هاي كسا دواذا نعيم برينكي iyo channelkeeda sida aad maalin walba u daawatid channelkeega ee aad ii support garaysiin 100% waan idin mahad celinayaa. Thank you so much. abaalna waan idinku hayaa ogaada. Maasha Allah tabarakallah maanta arrinkan halkan soo galay arrimii hore uu ka duwan yahay. Haddii aad ka heshay oo aad isleedahay that's good idea waa wax fiican oo aad rabto runtii inaan qaar kalena idin soo duubo fiidiyoyo sidoo kale ku saabsan please waxaad samaysaa subscribe saar channelkayga notificationka buttonka taabo si aad mar walba ila socoto insha Allah biidnillah. arrinkeena ayaan u gudagalaynaa maanta waxaan rabaa inaan idin sheego koob iyo 10 wax oo lagu ogaado ninka marka aad la sheekaysanayso inuu yahay nin guurkaale. hadda dhageysta mar labaad ma idinku soo celiyaa si aad علشان dhagta ugu maqashiin because waa laga yaabaa inaad si fiican u maqlaynin. koob iyo 10 wax oo aad ku garanayso ninka guurka kaale ayaan maanta idin sheegayaa. kolley waa laga yaabaa waxyaaban inay wax idin taraan. anigu kolley qof baan hay experience leh soo guursatay maasha Allah caruur leh nimana la soo xaasawday. so hadday koob iyo 10 kan wax ku anfacaan that's okay. haddaanay ku anficina hore uga sii soco because this is only my idea why. so number 1 waxa waaye ninku wuxuu kaala hadlaa mustaqbalkaaga kastaba ha ahaadee علشان ninku qurun walba ha ahaado ama ha ahaado Soomaali ama yuusan ahaan ninku marka uu danta ka leeyahay mustaqbalka ka leeyahay mustaqbalku ku weydiiyaa wuxuu ku dhahaa for example kale maxaad mustaqbalka ku maxaa la yiraahdaa aad ku dream garaynaysaa mustaqbalka maxaad rajaynaysaa inaad hesho laakiin kuma weydiinayo sawir ii soo dir iyo adigoo shaawarka ku jira iyo adoo qaawanayo no. He's not gonna say that. talabaad علشان ninka waxaad ka mid noqotaa familkiisa hadda ogow. for example kale wuu kula sheekaystaa wali muusan ku guursan laakiin wuxuu kugu casuumaa haddana familigooda xafladaha ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay leeyihiin iyo علشان waxaad noqotaa qof oo ninka familigiisa already si gabadh uu qabo ay kula dhaqmaa oo علشان wuxuu sameeyaa in uu familigiisa kugu casuumaa علشان familigiisa ayaad ka mid tahayba. so haddaanu ninkaas jirin علشان waxaa laga yaabaa ninka kula sheekaysta marka uu ka leeyahay mustaqbalka isaga oo Mareykanka degan adna aad Yurub degan tahay ama Afrika degan tahay ama meel kasta degan tahay wuxuu mar walba ku hamiyaa inuu ku yiraahdo waxaan rabaa inaan kula dego waxaan rabaa inaan meel wada degno علشان هدوغو because waa muhiim qofka aad nolosha isku darsanaysiin inuu noqdo qof aad wada degan tihiin. aniga kolley siday idea hayga tahay weeyaan nimo badan aan weydiiyay. number 4 wuu ku xiisaa ninku marka uu ka maqan yahay ninka ka rabo mustaqbalka marka uu ka maqan yahay wuu ku xiisaa wuxuu yeeshan message ku soo diraa iska waran xabiibtii see tahay wuxuu ku tusayaa in uu ku xiisay laakiin qof aan ku xiisin imaad xiisin miya hidrood baad dhehaysaa sorry. maadaama uu rabo inuu qofku inuu ku xiiso wuxuu ku tusayaa sida hadiyado kale ku soo iibinaya idinka banas qabin hadiyadu ku keenaya inuu kula joog u jecel yahay inuu ku yimaado jecel yahay inuu kula sheekaysto jecel yahay inuu surprise kaaga dhigo hadiyada ayuu jecel yahay. so qofan inuu message علشان ku soo diru jecel yahay. so haddana intaas jirin iga fogeeyay barshan adiga bas ayuu kula socdaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa naag kuna way shirisaa kuna way ka guursataa nimankuna kale waa sidoo kale I don't know nimanka wax maamaal lagu soo saari waayay laakiin waxaad ogaataa ninka ka rabo mustaqbalka inaanu qofka la soconin oo aanu irleji ku luminaynin qof kale علشان inaad tahay the one and only uu la socdo waa amazing. that's like waa ninka guurka ka raba. for example kale hadda banaanka idinka soconay aad aragto inuu naaga kala fiirfiirinayo naaga kala sida iga ilaalihe
karoor baan ku uri karoor so ninka mustaqbalka kaa rabaa meel buu allergigiisa dhan ku shubtaa that means adiga ayuu focuska ku saaraa so red flagga iska ilaaliya number 6 waa uu kaa warhayaa هذه علشان نمبر 6 waxaan ka wada علشان ka warhaya waxa waaye warta number 5 bay yara eegtahay hadana laakiin sina ugu ma eego علشان wuu ka walwala wuxuu ku yiraahdaa see tahay danahaagu ku weydiiyaa wuxuu ku weydiiyaa علشان adiga wixii kugu saabsanaa familkaagu ku weydiiyaa see tahay buu ku dhahaa علشان waa qof oo adiga ka walwala sidii uu علشان xaaskiisa uga walwali lahaa ayuu uga walwalaa taasna gabdhow iska ilaaliya 100% haddaanu signalkaasoo kale lahayn no way bartodaba runtii waxa uu sheegaa oo uu kuu sheegayaa inuu mustaqbalkaa leeyahay wuu kuu sheegaa علشان wuu kuu sheegayaa inuu mustaqbalkaa leeyahay wuxuu ku leeyahay anigu waxaan rabaa inaan ku guursado anigu waxaan rabaa inaynu gabar iyo xaaskeeda isu noqono anigu علشان waan ku jeclahay علشان markaas waxaa laga yaabaa xataa adiga inuu ku baarayo bal adiga xagga uu mustaqbalkaagu kaa joogo inuu ku baarayo adigu markaa ha isku dayin in aad subjectiga aad markaa ka hadlaysin inaad bedesho oo aad wax kale ka hadasho weliga ha isku dayin hadalka ka dhagayso haddii uu ku weydiiyo mustaqbalka iyo waxaas oo uu kuu sheegto kurado mustaqbalka waxaan rabaa inaan kugu darsado oo aan xaaskaagii aad xaaskaagii noqoto ka dhur hadalka ha ku ordin markiiba laakiin ka dhur hadalka hayade because haddii aad adigu hadalka aadan ka dhurin horay buu usii soconaya ninkaas wuu sii tegi wuxuu leeyahay maxal salaama because waxaad u eegtahay qof aan mustaqbalkaba la soconin number 8 ninka kaale mustaqbalka indhahu ku eega علشان eye contact wuu kula sameeyaa indhaha ayuu kugu eegaa iyagoo buuxa ayuu indhaha ku siiyaa waqti buu geliyaa inuu indhahaaga eego oo ishiisa iyo ishaada isku dhacaan laakiin haddii ka waran ama uu hoos foorsado ama uu dhinacyada eego ama uu qofaan ogeyn oo iska dhigo no qofka ninka mustaqbalka kaa rabaa indhahaagu eegayaa oy contact buu kula sameynayaa si deep ah علشان si oo والله gabadhan oo arabta والله gabadhan way fiican tahay ya so haduu meel kale iska findicilanayo like meelaha iska eegayo ha ay soo marin dhaya marka maxaa laga baahan yahay adiguna inaad meelaha eegin aad indhiis eegto because indhaha xataa waxay ku sheegayaan run iyo been waxay yihiin علشان qofkan inuu been ku sheego inuu run ku sheegayo so ninkaas haduu mustaqbalka ka rabo waa ninka indhaha ku siinayo indhaha si fiican eye contact ku siinayo so that is the red flag haddii uu meelahaas ka eego maaragtay barsagaal garabkaaga ayuu socdaa maxay ka wada garabkaagu socdaa haddama hortaadu socnaa mise gadaashaada yes waa aragteen baan u malaynayaa nimanka Soomaaliyeed siiba nimanka Soomaaliyeed hadda kan number 9 wuxuu ku leeyahay علشان ku badan yahay nimanka Soomaaliyeed nimanka marka ay gabadh la haasaawayaan ama ay la sheekaysanayaan ama ay mustaqbal ka rabaan ogaada ninka naaga kale ee la sheekaysto markii aad banaanka socotiin ee aad socod علشان banaanka maraysiin ama wax soo iibsanaysiin ama banaanka joogtiin wuu hor socda ama wuu daba socda ama wuu ka cararaabo gabadha you know why because naaga kala badan ayuu haystaa marraba naagahaasi inay ku arkaan adiga so ama isaga la arko leedo hebel baalka mariyo naag la socday so ninkaasi mustaqbal ma ka rabo maxay tir hodan cabdiraxmaan haygeyn hoteelada daran heesta macasuustay garalaada laakiin waxyaabo kale raba hoono so hadduu ku garab socdo waa ninka ku garab socda ee kula jaan qaadaya ee kula sheekaysanaya ee eye contactiga ku siinaya ee maanta dhan waxaan kula mushaaxaya ee ku raba ee kule mustaqbal baan leeyahay laakiin hadduu kaa rooro ama gadaal aado ay soo marin he no way ninkaas iga dhaafe 10 hadalkiisa ayuu sii wadaa ma soo afjaro maxaan ka wadaa taas markii for example oo kale ninka waad wacaysaa waxaad leedahay saaxiib see tahay ma fiican tahay ninka ma aragtay danka aan kaa lahayn ee hadalkaaga ku gubanaya ee aan ku rabin ee kaa rabo uun dee ma aragtay
danish waxay dhahan kiisamiisa like kaa raba beste nacaska diyuska sorry wuxuu sameynayaa wuu ka cararayaa hadallada uu soo gaabinaya waa fiicana walaalhay dhimoon wallahi waa khayr ya alxamdulillah haddaan guriga soo gala kabaa iska siibayaana hadhow ku soo wacooya calashaan wuu soo afjarayaa hadalka dhanba gam uu kasoo siinaa because nin mustaqbalka hale maaha wuxuu rabaa conversation kanba inuu ka dhex baxo because waa laga yaabaa inuu gabar kale wacanayo hadhowto waa laga yaabaa inuu wax kala sameynayo so it's like hun hore ma iga sii socoto so ninka hadalka soo afjara ee conversationka ama sheekada soo afjaro wadada ka xulhuun waqtigaas ka lumin so linka laakiin hadalkiisa sii wato ee conversationka ku sii jiro ilaa ay adiga ka daashid waa ninka ku raba dhageystay number 11 oo kii ugu dambeeyay waxa weeyaan ninka kugu masaala ex-kiisa masala ma dhaho kugu masala akhaari please haddii aan si khalad u saqara idinkay soo saxa laakiin waxa waaye ninka kugu masaala naagihiisii horay ama uu la sheekaysan jiray ama uu soo furay adduunka waa number 1 nin aan mustaqbalka lahayn waa turn off ninkaas waxaan ku raacay inta cayrin karto you know why waa laga yaabaa inaad tirahdid siduu ex-kiisa igu masaali karaa wuxuu ku oran karaa oo kale for example gabadhayda ex-kayga markaan kala tegayna waxaasaan ku kala tagnay gabadhayda alaabadii oo dhan guriga waa uga imaaday gabadhaas hadiyad bay ii keeni jirtay ex-kaygii waxay ii samayn jirtay waxaas wallahi ex-kaygii adaa ka qurux badan ama iyadaa ka qurux badan you know what nin oo ex-kiisa ka hadlaya haddaa aragto oh my god ambulance iisoo qabta waay ambulance iisoo qabta marka waxaan idin idhi waxaa imaanaya ambulance ka imaanayso ya red flag calanka cas aa kor u taagan ninku marka uu mustaqbalka kaa leeyahay because qofka bini aadanka mustaqbalka waa inuu focus gareeyaa haddii uu naagtii hore ka sheekeynayo maantaba naagtii hore kaaga sheekeynayo muxuu uga yimaaday naagtii hore muxuu uga yimi no wuxuu uga yimi soomaha dhibaato sooma ahayn inuu focus gareeyo futureka oo qof samaysto xaasa so wayba uga hadlaya hadduu laakiin ka hadlo maanta dhan dhinalag taaguro no ka soco walaal waa ku tuuga ka dheeray gabadhaas ninkaas waxaan ku uri ka dheerow nin ex-kiisa ka hadlo marka akhyaaray maasha allah tabaarakallah 11 waa kuwaas 11 siyaabood ee lagu garto ninka mustaqbalka kaale ee ku rabo inuu ku guursado guurka rabo akhyaaray aniga waxaan focus ka saaraya waa guurka waxyaaba kale oo dhan I don't care guurka ayaan saaraya focuska because ninka mustaqbalka kaale intaasoo waxba waad arki doontaa waad ku arki doontiin maxaa la yidhaahdaa go for it qabiil ha ku dooran madow iyo cadaan ha ku dooran color ha ku dooran ku dooro bini aadanimada iyo wanaaga so waxaan idinka codsanayaa haddii programkan uu idin cajabiyey please noo soo badi ama kanoo kale kasoo hadal dhaha hadda gabdhaha ayay ku saabsan tahay calashaan aan usoo duubay gabdhaha inay ka faa'iidaystaan cajalka ku xiga waxaan rabaa in aan soo duubo 11 wax seeyaabood oo lagu garto gabdhaha wiilka ay mustaqbalka ka rabaan ama wiilashu ay ku gartaan gabadha mustaqbalka rabta iyo gabadha waqtiga ka luminayso so wiilashayda Soomaaliyeed ayagana la socda maan idin loowin laakiin insha Allah waa idin soo wada and I love you guys boqolkiiba boqol thank you so much for everything sida aad ii follow garaysaan programyada kale waan soo badin doonaa please subscribe saar channelkayga gambaleelka taabo si uu mar walba wax walba kugu soo dhacaan and I love you guys assalamu alaykum thank you عدو جبية كانية أبنى عاشقاقية عدا الله جعشاية عندي قاقو كوربية وعسو نفتضوية عاوي لصورية